السلام عليكم سوري بعد صاحبيال waxaan ahay Ibrahim Adam waxaan bilaabi doonaa xalaqad cusub oo aan ku soo kordhinay kanaalkeena ama channelkeena maalmo ka hor waxaan qaybta community ku soo daawacnay formadan oo leh waxaan channelkeena ku soo gudbinaa laba mowduuc oo kala ah horumarinta nafta English waxaan go'aansanay inaan ku soo kordhino mid saddexaad oo ah storytelling sideed u aragtaan falcelintiinu waxay noqotay sidan hadaba muuqaalkan waxaan idinku soo gudbin doonaa sheekad dhab ah oo ka dhacday wadanka Mareykanka gaar ahaan South Carolina sheekadan waxay ku saabsan tahay laba nin oo wadaagay hal wadne hal xaas haddana u dhintay u geeriyooday ama isku dilay hab isku mid ah sheekadan waxay trendy ka tahay maalmahan dhanka TikTok iyo qaar kamid ah newsyada wax ku soo daawaca website-yada hadaba waxa jiri doonta qaab aan u soo gudbin doono sheekada gabi ahaan waan ka duwanaan doonaa qaabka ay wax u soo gudbiyaan janaalada kale ee soo gudbiya niche-kan ama sheekooyinka muhiim maaha in aan dhahno hebel wuxuu dhashay waqtigaas hebel wuxuu ku dhashay meeshaas hebel wuxuu ku weynaaday meeshaas yani fasiraada dheer ee noocaas ah waan ka wareejin doonaa waxaana si toos ah u guda gali doonaa sheekada iyo waxa ay ku saabsan tahay ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta hal midna aan idin xasuusiye yani ma dhameystirna sawirada saxda ah ee laga hayo dadka soo waxaan isticmaali doonaa cartoon ama anime qaabka u taqaanin sidoo kale hadii aad rabtid sheekada in aad akhrisid qaybta description-ka ayaan soo gelin doonaa linkiga sheekada iyo website-ka aad ka akhrin kartid ninkan waxa lagu magacaabaa Sani maalin maalmaha kamid ah waxa ku dhacay cudur dhanka wadnaha ah kadibna dhaqaatiirtu waxay u sheegeen in wadnihiisu uu noqday mid howlgab ah oo u baahan yahay in uu helo wadna kaleeto Sani waxa lagu daray oo magaciisa lagu qoray buuga dadka sugayo wadna badal ah ama in ay helaan dad dhintay oo ku deeqay wadnahooda si loogu bedelo ama loogu sameeyo heart transplant sidoo kale waxa jiray ninkan oo lagu magacaabo Terrence waa qof caadi ah oo noloshiisa iska watay yani normal life ay iskaga noolaa laakiin waxa uu qabay naagtan oo aheeday xaaskiisa oo ayadana lagu magacaabo Shirley Terrence iyo Shirley caadiin waxay ahaayeen dad isku buuqa ismurma isku qeyliya yani nolosha aan marka qaar aan isku fahmin yani stress ay ku riday jirtay maalin maalmaha kamid ah Terrence iyo Shirley muran ayaa dhaxmaray murankaas oo ku saabsanaa yani dhanka dhaqaalaha ama lacag oo kale Terrence uu dul qaadan waayay oo soo baxay qolkiisa ayuu yimaaday kadibna waxa uu soo qaatay bahashan oo aan ku magacaabi doono bir madaxa ayuu iska saaray kadibna naftiisa ayuu eliminate garay kadib yani asxaabtiisii dadkii ehelkiisii iyo dadkii deegaankaba waxay u ahayd arin aad u muruga badan in ay dhacday arintan ilaa laga reebo ninkan oo ahaa Sani oo ku faraxsan in uu mar uu helo qof ku deeqay wadnihiisa kadibna Sani waxa loo geliyay wadnihii Terrence wuxuu sidaas ku helay wadne muddo 6 bilood kadibna Sani wuxuu noqday mid caafimaad qaba noloshiisa ayuuna dib ugu soo laabtay kadibna wuxuu go'aansaday in warqad u qoro familkii Terrence oo ahaa ninkii wadnihiisa ugu deeqay soo gaartay warqadii Shirley markii warqadii ay soo gaartay oo ay akhrisay waxay go'aansatay ayadana in ay jawaab ay u celisay Sani asna warqad kale ay u soo qoray ayay warqad kale ay u qortay sawir ay isdhaafsadeen kadibna Shirley waxay go'aansatay in ay wacdo Sani kadibna markii ay isla hadleen waxay go'aansadeen in ay kulmaan ama ay is arkaan waxay ku kulmeen meel maqaayad ah ama coffee shop ah kadibna way sheekaysteen balse ninkii Sani ahaa qoftani uu ka helay wuxuu dareemay in uu jeclaaday ama uu ka helay balse arinta jirta ayaa waxay tahay Sani waxa uu qabaa xaas ayuu leeyahay sidoo kale Shirley nin kale ayaa markiiba guursaday oo ninkeedii dhintay oo nin kale ayaa guursaday oo qabo arintu markay sidaasi tahay muddo kadib Sani iyo Shirley waxay bilaabeen in ay si hoose u wada xiriiraan oo si hoose ay isku arkaan oo yani si hoose ay xiriir u wada wataan maalmaha kamida ninkii Sani ahaa xaaskiisii uu soo furay Shirleyna ninkeedii way soo furtay kadibna waxay go'aansadeen inay labadooda isguursadaan oo ay wada noolaadaan labadoodii ayaa isguursaday wayna wada noolaadeen balse muddo kadib kana yar hal sano yani murankoodii ayaa batay way ismurmeen way isku buuqeen yani qoftan ayaa waxay ahayd qof dhib badan ayaan dhihi karaa way xanaaqday borsooyinkeeda ayay soo qaadatay wayna ka soo tagtay mayna sii joogin muddo ka yar kadib jacayl kale ayay heshay nin kale ayaa jeclaaday wayna guursatay sidoo kale xiriirkii hal sano ma sii soconin ninkii way isku buuqeen asagiina wuu furay qoftii Shirley ahayd waxay dareentay cidlo waxayna go'aansatay in ay dib u wacdo ninkii Sani ahaa Sani ayay soo wacday dib ay u wada xiriireen way sheekaysteen mar kaleeto wayna isku soo laabteen muddo markay isqabeen oo lagu qiyaaso ilaa 13 sano ninkii Sani ahaa waxa uu noqday mid howlgab ah sidoo kale waxa ka dhamaatay lacagtii loogu talagalay howlgabka oo yani ay dawladda siinaysay oo kale ayaa ka dhamaatay ninkii wuxuu noqday nin deymo badan lagu yeeshay yani stress ayuu qaaday ayadina buuq ay oola taagan tahay Sani saaxiibadiisa iyo familkiisa waxay ka dareemeen ninkan inuusan xaaladiisa caadi ahayn yani wuu isbedelay stress ayuu qaaday yani nin nooc kale ayuu noqday sheekada markay halkaasi marayso habeenada
asxaabtooda ka mid ah Sunny iyo Jelly buuq ayaa soo dhexgalay, yacni muran ayaa ka dhex bilowday, way isku buuqeen. murankan iyo sheekadan waxay ku saabsaneyd isla buuqi iyo murankii ayada iyo Terrence dhex maray oo ahaa dhaqaale ama lacag. Sunny yacni wuxuu noqday mid iska yarshiid ah. kadibna ninkii Sunny ahaa buuqi ayuu u dulqaadan waayey, uu soo baxay qolku ayuu soo galay, wuxuu soo qaatay geedkan oo Soomaalida ay ku magacaabaan jabshe. kadibna he eliminated himself, naftii ayuu isdhaafiyey. halkaas ayayna kusoo dhammaatay noloshii labada nin ee wadaagay halka wadno, sidoo kale wadaagay halka xaas oo ahayd mid inkaar qabto, sida isku midka ahna u dhintay ama isku dilay. halkaas ayayna maanta sheekadeena ku eg tahay. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan qaybta commentiga nagula wadaag sida aad u aragtaan soo gudbinta sheekooyinka iyo qaabka aan oga sheekeynay. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. sidoo kale waxaan rajeynayaa in aad kanaalka subscribe saari doonto ama ugu yaraan aad qof la wadaagi doonto muuqaalkanna like-ta ka hilmaamin. waxaan ku leeyahay Ramadaan mubaarak. Assalaamu calaykum.